siyaasadda Soomaaliya waxaana aanu khadka teleefanka la xiriirnay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo jooga magaalada Baydhabo. sida la socotaan ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya waxa uu soo dhisay dawlad ama xukuumad tiro yar taasi oo sababtay in baarlamaanka Soomaaliya uu cod buuxa ku ansixiyo. ra'yi kala duwan ayay ka bixiyeen dadweynaha Soomaaliyeed ee la soo xiriiray telefishinka Universal magacaabista xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaaruhu magacaabay. haddaba ra'iisul wasaare Nuur Cadde waxaad ku soo dhawaataa telefishinka Universal marka hore. waa mahadsantahay xasan aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. waxaan marka hore salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha telefishinka Universal. waxaana runtii ku ammaanayaa kaalinta weyn oo xagga warbaahinta uga jiro. waxaanan kulley ka codsanayaa inay sii wadaan dadaalkaas taasoo ay ummadda Soomaaliyeed runtii ku gaarsiinayaan fariimaha kala duwan oo ama dhexdooda ama dibadda ama meel kasta ka imaanaya. iyo runtii waxaan ku faraxsanahay telefishinka Universal oo markasta ka turjumaya kulley dareenka dadweynaha yani muxuu ahaay oo markaas dabcan tabinaya. marka waa mahadsantihiin waana dawar. waayahay ra'iisul wasaare aad baan kugu mahad celinaynaa fursadda aad siisay telefishinka Universal. su-aasha koowaad aan ku weydiinaya waxay tahay maadaama aad tahay ra'iisul wasaarihii labaad la magacaabo tan iyo markii dawladda federaalka Soomaaliya ay la soo dhisay waxaad soo dhistay xukuumad tiro yar. marka xukuumadda tirada yar ee aad soo dhistay qaabka ay u howlgalayso iyo aragtidaada la xiriirta sida ay wax uga qaban karayso bishaakilka ka taagan waddanka Soomaaliya. xasan waa mahadsantahay. dabcan waa ogsoon tahay oo intii muxuu ahaay muddadii yani lagu soo dhisay magaalada Nairobi dawladdii ku-meel gaarka ahayd oo loogu talagalay kulley muddo 5 sana inay xilka hayso waddankana yani gaarsiiso muxuu ahaay waqti doorashooyin axsaab siyaasadeed yani dastuur ummadda fura u noqda oo ay ku naalooto iyo dabcan xornimo ama waxaan dhihi lahay doorashooyin madax bannaan oo qof walba oo yani muxuu ahay hal cod leeyahay oo 4.5 iyo wax lamida aysan jirin oo laga baxo oo soomaalinimo dhaban loo gudbo. marka dabcan xukuumadda hore loo dhisay markii kulley isbedelo una yimaadeen oo dhacday in ra'iisul wasaarihii hore iscasilay aniga lasoo magacaabay. hadda markii horena waxaan soo dhisay runtii xukuumad ballaaran. kadibna markii xukuumaddii ballaarneed aan dhisay safaraan galay oo mataqaanaa dalka dibaddiisa ashirar marka ama ha noqoto baarlamaanka gudihiisa ama xukuumaddii aan dhisay xubno kamid ah oo iscasilay baarlamaankii oon ka maqlo dhawaaqyo kulley aan xukuumaddan soo dhis raalli laga ahayn. dadweynihii oo dareen kala duwan fariimo ah ay iga yimaadeen. bulshadii caalamka oo ayadana runtii fariimo fara badan soo gudbisay. waxaa ii soo baxday in rabitaanka guud ummadda Soomaaliyeed iyo adduunweynahaba ay yani ku cabiran tahay in la helo xukuumad shaqayn karta oo maaragtay yani karti iyo awood ay ku shaqayso leh tiradeedu yar tahay oo adduunka yani muxuu ahay uu u riyaaqi karo mid shacabkii ummadda Soomaaliyeed yani ay aqbali karaan. waxyaalo badan markaan fiiriyey kolley dhinacyo badan waxaan yani go-aansaday in tirada xukuumadda la yareeyo ugu soo koobo 18 wasaaradood halkii ay ka ahaayeen 31 wasaaradood
golaha xukuumaddana oo marka hore aan ka dhigay 73 xubnood oo 31 wasiir 30 wasiir ku-xigeen iyo 11 wasiir dowle inaan ku soo ururiyo 18 wasiir iyo 5 wasiir ku-xigeen oo keliya oo ah 23 xubnood 50 xubnoodna ay meesha ka baxaan marka sidaas ayaa horta waa garta ra-iisul wasaare laakiin hadalkaaga haddii aan tix raaco markii hore ee aad xukuumaddii hore soo dhisaysay xubnihii hore ayaad ku celisay marka maxaa xilligaasi kugu khasbay inaad saa wax u magacowdo xilligan dambe waxaan yani kalifay marka aan xukuumadda marka aan go-aansanayo inaan xukuumadda yareeyo tirada muxuu ahay tirada wasaaradaha marka aan go-aansanayo inaan yareeyo qaab dhismeedka xukuumadda dabcan iyo in tirada la yareeyo waxaan yani ka runtii ka jawaabayay baaqiyo kala duwan oo ka yimiday bulshada iyo adduunweynahaba oo iyo baarlamaanka iyo meel kastaba oo yani dabcan daliil aniga laygu daliilaayo war haddii adiga aada la soo kulantay oo ra-iisul wasaare lagu magacaabay wakti baarlamaankii uu furay oo baarlamaankii uu fasaxay in dibadda iyo gudahaba laga soo dhisi karo xukuumaddii sababta kugu kaliftay inaad 2 xubnood ama 3 xubnood keliya aad dibadda ka keentid maxay tahay marka dareenka isaga ah dabcan wuxuu ugu dhaliyey inaan dib u fikiro inaan waxa dadku jecel yahay oo dadku ummaddu ay rabto dabcan anigu ummadda ra-iisul wasaare taa ulama jeedo dareenkeeda inaan ka turjumo saasaa keentay taas ulama jeeda su-aashaydu waxa weeyaan macnaha xukuumaddii hore ee tirada badneed markii hore iyadoo isbeddel lagaa filayay inaad sidaas aad xukuumaddaas tirada badan markii hore u dhisto taa weeye su-aasha taa maxaa kugu kalifay ayaan ku weydiiyey taas xukuumadda hore waxay ahaaday aniga markaan imid oo laysoo magacaabay oo baarlamaankii isiiyey yani mataqaanaa kalsooni oo magacaabidayda ku ansixinayo anoo ogsoon dibadda iyo gudahaba in laga qaadan karo waxaan aniga kolley go-aansaday in gudaha baarlamaanka loo badiyo iyadoo aan qiyaasayo markaas in aan arkayay kolley in aniga dabcan meesha aan ku cusbay xukuumaddii hore u jirtay wax oo macnaha isbedel weyn oo maaragtay yani keena waxyaalo badan cusub ma aana samaynin xukuumaddii hore inta badan ayaan runtii ku celiyey qaybo yani dad badan oo kamid ah walo wax cusub ay ku jireen laakiin haddana dareenka bulshada iyo dareenka dadweynaha markaas kadib ubau soo dhashay kadib unbayna timiday baahida tan ah aniga aan dareemay in loo baahan yahay inaan isbedel weyn waa gartay ra-iisul wasaare